maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukun ku riday eedeysane lagu soo eedeeyay inuu kamid ahaa kooxda Daesh. waxaa warbixin inoo soo diray magaalada Muqdisho wariyahayaga Maxamed Xasan Qays. maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta xukun xabsi daa'in ah ku riday Jaamac Xuseen Xasan oo la sheegay inuu ka tirsanaa kooxda Daesh ee ka dagaalanta buraha galgala ee Puntland. xukun sanaha maanta ay xukuntay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa lagu xukumay xukun dhan cimrigaha ku furto oo ah xabsi daa'in, waxaana Jaamac Xuseen Xasan oo horay wareysi looga qaaday uu ku qirtay inuu ka tirsanaa kooxda Daesh isla markaana uu sheegay in dagaal uu la galay ciidamada Puntland ee ku sugan buraha galgala, waxaana lagu qabtay gobolka Shabeellaha Hoose xilli la sheegay inuu miino dhigayay sida uu ku dhawaaqayo xukunka gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute. maxkamaddu markii ay dhageysatay qiraalka eedeysane Jaamac Xuseen Xasan uu ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa in uu ka tirsan yahay kooxda Daesh qaybta farsamaysa qaraxyada kana soo qayb qaatay dagaallo ka dhacay buuraleyda Qandala, kadibna uu u soo wareegay gobolka Shabeellaha Hoose si uu uga fuliyo qaraxyo. ciidamada amniguna ay ku soo qabteen howlgalkiisii ugu horeeyay asagoo dhigay miino meel bar kontarool ah. maxkamaddu markii ay dhageysatay markaatiyaashii la hor keenay midna ay u weydiisay marag furkooda, waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in iyagoo sameynaya gaafmeer ay arkeen eedeysane Jaamac Xuseen Xasan oo ku dhuumaalaysanaya beer u dhow kontaroolka boodboodka oo ah meel ay degan yihiin ciidanka daraawiishta booliiska. markii ay baareenna ay ku arkeen bac uu watay bateri 12 voltage ah iyo camera video. kadibna tixraac ay ku sameeyeen fiilo daadsaneed meesha ay ku qabteen eedeysanaha ay ku arkeen gasac laga soo buuxiyo walxaha qarxa oo ku jira qaybta dambe ee kontaroolka ay fadhiistaan ciidanka daraawiishta booliiska. sidaasna ay ku qabteen eedeysanaha uguna wareejiyeen saldhigga booliiska Afgooye. maxkamaddu markay aragtay dambi muujinta iyo cadeymaha la hor keenay maxkamadda horteeda oo ay ka mid ahaayeen cadeymaha laga qoray markaatiyaasha, qiraalka eedeysanaha laga qoray, camera video oo wata eedeysanaha, bateri 12 voltage ah oo uu doonayay eedeysanaha inuu u adeegsado qaraxa, fiilooyin oo uu talagalay inuu ku sameeyo qaraxa, muuqaal laga duubay qaraxa uu dhigay eedeysanaha inta aanay ciidamada amnigu qarxin ka hor, muuqaalo kale oo laga helay camera video oo uu watay eedeysanaha oo muujinaya in eedeysanaha uu xiriir la lahaa kooxda Daesh. maxkamaddu markii ay dhageysatay doodii qareenka oo nuqurkeedu ahaa in eedeysanaha loo naxariisto maadaama lagu soo qabtay ficilkiisii ugu horeeyay oo aan waxyeelo geysan, sidaa darteed maxkamadda waxaa u cadaatay in eedeysane Jaamac Xuseen Xasan uu yahay dambiile galay dambiga lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'in. ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan. Maxamed Xasan Qays, RTN TV, magaalada Muqdisho.